ninka uu inoogu dhamaystiray waxoogaa yareed dhawaan intan dambe dhacayna waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa haddii alla idhaa wax ka weyn in ilaahay naga xijaabo alxamdulillahi rabbil caalamiin baynu taaganahay sida uu muuse iyo qolooyin kale oo badanida ay sheegeen maanta Somaliland oo dhan baa guuleysatay muuse oo kaliya muu guuleysanay Somaliland oo dhan baa guuleysatay shacabka reer Somaliland baynu taaniyad u diraynaa allahumma salli ala musharixiintii oo dhan baynu hambalyeynaa laakiin si gaar ah maanta waxa hambalyadiisa ay tahay muuse bixi cabdi weeyaan maalintii la taaniyadeynayay allahumma salli ala nabiyina maxamed xalay taanu qolay ma la xiriir wasiiraa telefoonka muuse kuma helin markiiba taaniyad baan u diray maantana waxaan qolay wasiiraa aan ku balansanay markii muuse arkaan ay u tagaan inay la soo hadalsiiyaan haddii la yiraahdo oo aan si shakhsi ah u taaniyadeeyo haddii la yiraahdo waayo waxa weeyaan waa arrin qolooyinkii jahada ahaa farxad gaar ah nin naga midi maanta inuu doorashadii ku guuleystay oo madaxweyne uu beegsanayo haddii alla yiraahdo waxa weeyaan farxad gaar ah ay noo tahay in badan baa muuse aniga la iga wareystay laba qodob muuse wax badan baa laga yaqaanayo waa raggii imka saaxadda siyaasiga ku jiray muddo ku jiray ilaa Somaliland bilowgeediiba ku jiray wax badan baa laga yaqaanaa laakiin laba qodob oo dadka badankooda aanay muuse ka warhaynin ayaan dadka ugu daraa oo ay la yaabaan waa mid waqtigii jabhadda iyada oo xerajooga ciidamadu uu wagash yahay oo xerajooga ciidamadu aan wanaagsaneyn ayuu muuse noo yimi muuse intuu buriyo toore qaatay iyo caday dheer ayuu xeradii askarta u fadhiistay ayuu ciidamada u fadhiistay mujaahidiinta way ku daydeen wuxuu ku soo kordhiyay jahadii aslamta waxa la yiraahdo saraakiisha xerajooga ku soo kordhiyay oo markaa naga maqnaa oo wax weyn ka bedelay jahadii aslamta waxa ka bedelay allahumma salli ala nabiyina muhammad gaar ahaanna dhinaca galbeedka waa lagu wada dayday muqayri jirin sababta weyna u suurtagelisay waxa isagu muqayri jirin laakiin saraakiisha badankooda way qayri jireen oo xerada way ka tagi jireen askartuna way raaci jireen oo way la qayla tagi jireen marka dagaal la sameeyay askarta waa la heli jiray iyo saraakiishada laakiin inta u dhaxaysa ayaa waxaad ku xisaabtanto oo meeshii aad ugu tagto oo xeradii aad ka helaysa aanay jirin intaan muuse iman waa qodob aad iyo aad muhiim u ahaa oo guushiina wax way ka taray ayuu qodobkaasi oo muuse uu gaar u lahaa oo soo kordhiyay isagu taas meelo badan ma ka sheegay qodobka labaadna waxa weeyaan intii aynu Somaliland ku dhawaaqnay dabadeed muuse wuxuu aanu ku kulanay aniga si gaar ah ugu kulanay arrintii la oran jiray in xusantii muujiyo dib u habayntii asnanta bilaami jirtay 1999 labadii kun iyo xoogaagii socotay waanu badnayn arrintaa muuse si gaar ah ugu bartay waayo hore jabhadu maan wadahay iyo dagaaladii iyo waxaan kaas ah oo ku fiicnaa oo ku aqaanay laakiin siyaasadii baan waqtigan ku bartay muuse markii hore dadka badankoodu waxay u arki jireen nin seeflabooda oo xanaaq badan oo dagaal badan oo xayraan ah allahumma salli ala nabiyina muhammad laakiin waqtiga dib u habayntii asnanta waxaan ku arkay oo aanu marxaati ka ahay ilaahay hortii inuu ahaa ninka ugu waayeelsan ee igula jiray dib u habayntii asnanta waqtigaas waanu badnayn waxaan idin sii faahfaahinayaa waqtigaas dib u habayntii asnanta waxay isku qabatay oo markii dambe aan ku kala tagnay inay raacigaal madaxweynaha sidaynu u naqdinaa inay raacigaal Allah naxariistay sidaynu u naqdinaa marka mucaarad baan ku ahay ragga badankooda aniga iyo muuse mooji ragga badankooda oo dhan waxay oran jireen aynu kululeyna arrinta oo aynu si cunfiya oo daran aynu u caaridno madaxweynaha inay raacigaal aniga muuse waxaan oran jiray waryaalaha dhageysta dagaal sokeeyaa laga soo gudbay wax yar ka hor allahumma salli ala muhammad dadku uma baahna wax dambe oo ka naxiyo isilahaan imika haddana mar dambe la qaxayo la ka dhacaysa waddanka aynu inagoo mucaarado sameynayna mucaaradadeenu aan noqoto mid dhismo ah oo waxtar ah tan la yiraahdo constructive mid dhismo ah oo waxtar aan noqoto ay noqonin mid wax burburisa
oo kalayaa iyo qaxitaan dambe ummadda u horkacda ummadda ma qaadi karto ayaan oran jiray ninka keliya igu raaca qodobka raggii aan ku wada jiray dib waxbayntii ee sanadka oo dhan muusoo marka waxa weeyaan qodob bisayla oo waayeela oo aan anigu markhaati ka ahay ninna intiisa lagama khayro ninna intiisa lagama khayro talooyin badan baan walaalkay iyo saaxiibkay muusoo hayaa haddii alla yidhaha laakiin isaga marka aan wada xidhigno ayaan talooyinkaa ka horreysiinayaa idinkuna waa ka warheli doontaan haddii alla yidhaha maanta waa maalintii hambalyada uun waynu hambalyaynaynaa waynu ducaynaynaa waxaan